الله أكبر. القرآن جميعا. ogow sababta ka dambeysay in laba wiil oo walaalo ah oo salaada taraawiixda tujin jiray uu toogto walaalkood ka weyn. Sidee ayuu dilkani sabab ugu noqday kufsi 10 sano ka hor la geystay? Si aad wax badan uga ogaato, dhammayso warbixintan. Like saar oo ku xirnow bogga Maxamed Muuse Tarsan. Mahadsanid. Waa dhacdada loogu hadalhaynta badan yahay dunida Islaamka. Xaqiiqdii waa mid naadir ah. Cabdiwaaxid Xuseen Cabdicasiis iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cabdicasiis oo kala ah 12 sano jir iyo 16 sano jir waxay ahaayeen xaafidul Qur'aan lagu bartay tujinta salaadaha gaar ahaan masjidka Taqwa oo ay taraawiixda ka oogi jireen. Dilkooda waxa fuliyay Hanad oo ah walaalkood ka weyn oo ay isku hooyo yihiin, kaasi oo la sheegay inuu ka argudanayo aabahood oo hore u kufsaday walaashii oo ay isaga isku hooyo iyo isku aabe yihiin. Xuseen Cabdicasiis oo ah aabaha labada wiil ee xalay la dilay ayaa lagu soo eedeeyay inuu kufsaday gabar ay xaaskiisu u dhashay nin ay horay u soo kala tageen. Arrintaas oo ay ka garnaqday maxkamad ku taal dalka Mareykanka waxaana lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah. Balse markii laga sii daayay jeelka 3 bilood kadib waxa uu qorsheeyay dilkii koox gaangistaraha ay u geysteen xaaskiisa. Sida laga soo xigtay dadka sida weyn ula socday qisadan ee ku nool Kansas City, Missouri ee Mareykanka. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Waxaa la sheegay in Hanad uu argudayay hooyadii iyo walaashii oo midna uu dilay midna uu kufsaday Xuseen Cabdicasiis oo ah aabaha labada wiil ee xaray la toogtay iyagoo ka soo baxay tujinta salaada taraawiixda. Booliiska Kansas City oo tegay goobta toogashadu ay ka dhacday ayaa ku raad jooga dilaaga waxaana la baahiyay sawiradiisa iyadoo madaxiisa lacag la dul dhigay waxaana la geliyay baafin.